ninkaasaa arkaysiin oo beeshii caalamka hortaagan oo 26 dowladood la hadlaya oo weliba dowladihii ugu quwadda badnaaya caalamka waa xasan sheekh maxamuud wiilkii ku dhashay Jalaalakhsi labada goorna madaxweynaha noqday waddankana hadda hogaaminaya nasiibka uu yeeshay iyo ummadda Soomaaliyeed heerka uu gaarsiiyey aan rabaa maanta inaan kuu dul istaaga igu horwareeg dhiigga ay kacsan anigoo dhan asaas isla walaaq maayaa yirna xawaadla unugoo dhan isla walaaq maay iga horwareeg maanta xasan sheekh maxamuud 26 dowladood la shira deyntii Soomaaliyeed isla caawadana la cafinayaa hoolkeedii la fadhiyaa hadda ayadoo lagu dhawaaqay mar dhaw la soo gelinayaa hadaba lagu dhawaaqinba wariyaa asagoo bari wuxuu ku soo laabanaya waddanka Soomaaliya deyntiina la soo cafiyay tan labaad hubkii Soomaaliya waxaa la kala saxiixday heshiis 3 geesood ah wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya madaxana furan wuxuu heshiis la saxiixday security iyo amnigii kala wareegay admis wuxuu heshiis la saxiixday nimankan la yiraahdo Yursom nimanka la dhihi jiray waxaa lagu heshiiyey in la qalabeeyo hub quality lo tayela ciidanka Soomaaliya lagu qalabeeyo waxaa lagu heshiiyey intii u dhisneed African Union oo Soomaaliya ka joogtay saddexdeed amniga si degdeg ah mushaarkooda u bixiyaan nimanka le Mareykanka intaan soo kabsanayno hubkoodana ay qalabeeyaan hub casriyan ay siiyaan maraakiib ay badda ku waardiistaan badda la soo istaajiyo waxaa la isku raacay 26 ka dowladood dowlad walba heshiis ay soo horreegtay Soomaaliya maxaan ka kaalmaynaa waa Turkiga waa Faransiiska waa Ingiriiska waa Mareykanka waa Nikaaliya waa Iran waa nimankaaliya waa Pakistan awood ay leedahay ayaha u malnayna dowladaha nuclear ka sameyn kara ku jirta waa India waa Asia waa midowga waa United waa Arab United head waa Emirates United Arab Emirates waa isku tagi Emiraadka waa African Union wax ka maqan 26 dowladood oo quwad leh afadhida Ethiopia fadhida Djibouti fadhida Qatar fadhida Sacuudiya fadhiya hadda afkayga ogow waxa fadhiya Sweden waxa fadhiya Holland waxa fadhiya Denmark waxa fadhiya ishaq meeshan la yiraahdo war dowladaha caalamka la yaqaano oo magaca Itaaliya fadhida fadhiya xasan sheekha ka hor hadlay isay fir lakiman hamiinu dhash hooyana dhashay maana arag qof Soomaali aniga nasiibkayga Ilaahay ugu simay maantay oo Ilaahay ugu simay maanta xasan sheekh oo 26 dowladood oo caalamka u talinaysa hortaagan jarmalka fadhiya xataa ana ka reebin dowladaha ugu dalay ruushkiya fadhiya ana ka reebin qola ka maqan mala shirkaas waa dowladaha caalamka markii dowlad la kaalmeynayo oo hub lagu kaalmeynayo ama adduunyo la siinayo iyo isku yimaado way oo awood leh xasan sheekha ka hor qodbeynay wuxuu sheegayaa waddankiisu wuxuu u baahan yahay wuxuu ka qabtay wuxuu ku codsanayo bismillahir rahmaanir rahiim jarraca ma ka jabto horta warkii ma ka jabi anigu ma nooliye saa u jarracoonaya waa ma nooliye adiguna ma ka jabta farxadda aan farxay Ilaahay ugu simay bulshada Soomaaliyeed way kala nasiib badanta rag baa ka dhintay nasiibkan oo soo gaarin nasiibka aniga aan waayay raga hortay helay oo dowlad Soomaaliyeed oo dhisan soo helay anigu ma nahil intaas orod iyo qaxan ku jirin iyo meel u gur xasan sheekhow gudbadna gaarsiis ama ninkii galaa in loo gudaa garwey waxaan ku gaari doonaa ama aan ku gaarsiin doonaa ayadoo lagu waardiyeenin oo la dhahayn maaragtay ii sheeg ama la dilaa dadu dambi ka galay inaa Soomaali ku dhex lugay sida aadan cadde aan gaari doonaa Ilaahay idinkiis waana ka kasbatay Soomaaliya hadday dad fiyow yihiin oo calool fiyow yihiin oo cugdad ay maaragtay qabiilka iyo baktiga iyo waxa lagu dhex wada ay ka dhex baxdo waana ku wada wadadii looga dhex saari lahaa haddii waddanku xisbiyo uu u gudbo ma imaanayso reehbal iyo federaal iyo qabiil ma imaanayso federaalkan balaya cugdadana dhex dhigay maana aqoon Somali Republic la dhihi jiray xaduud maana lahayn qabiil baana aqoon jufa maana aqoon waxa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarugto federaalku inuu cudur yahay oo cudurna dhex yaala yahay oo qabaa'il laga dhigay xaduuda noo sameeyay xasan sheekh maxamuudna wuu gaari doonaa heer ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo ku dhex lugeeyo asagoo waardiye lahayn wuuna gaara
deyntii oo la cafiyey cunaqabatayntii oo la qaaday maaragtay dalladda bariga afrikana lagu daray maaragtay ii sheeg qawaariij la ceyrsanayo ma soo xisaabisid kow bay dhihi maysiin deyntii kow afrikana lagu daray dalladii afrika bariga afrikana lagu daro ganacsiga labo cunaqabatayntii oo la qaada saddex hubkii afar sharciga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda hor yaalla oo madasha wada tashiga qoran ay soo qortay oo waddanka u gudbayo xisbiyaal oo la ansixiyey keliya dhiman shanta qodob xasan sheekh oo ku soo celceliya dhowr shirna uga hadlay haddii taas la gaarsiiyana waa guulaysanay ummadda soomaaliyeedna waa guulaysatay waraa maanta iga hor wareeg oo sheergare oo meel walbaba geli iga hor wareeg nin muhiim ay soo wacay oo aafti iga soo wacay warkaan ka soo qaadee